بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوة السود هذا marka hore hadaad tahay markaad koowaad oo soo booqatid bogga Qarlo Media waxa ka codsanayna daawada inaad follow iyo like aad nagu sharaftid muuqaalkana sii share gareysaan commentiga iyo like-tana aad u soo badisaan sidoo kale channelka aan ku leenahay YouTube-ka Qarlo Media inaad subscribe iyo like aad nagu sharaftaan waxaan rabaa daawadayaal magacaygu waa Maxamed Cabdisaaq Cismaan fantastic waxaan rabaa inaan halkan kaga hadlo dhawaan waa la xiray 6 bari baan ku xidhnaa jeelka weyn ee magaalada Qarlo in arintaas aan faahfaahiyo xarigayga wuxuu ku saabsanaa waxay dawladdu cuskatay inaan faahfaahiyo aniga oo dhowr xalqadood in la wadaagi doono oo aan haddan ka hadli doono yaa xiray xarigayga ka dameeyay oo saldhigga igeeyay saldhigga Qarlo intaan ku kulnaa iyo jeelka maxaan kala kulmay xaaladda jeelka magaalada Qarlo maxaabiista ku xiran maxay ku sugan yihiin iyo qodobka ugu dambeeya insha Allah maalinta la soo daayay maxay tiri maxkamaddu ama qodobadii lagu yiri ama sideentida qaab noocay u maday in afarta xalqadood ka hadlama rabaa insha Allah xalqad baan u daawan doontaan hadii alla idmo maanta waxaan ka hadli doonaa sababta xarigayga iyo xilligu soo bilaamay baan rabaa insha Allah inaan idin la wadaago ilaahay ma had iska leh waxaan xirnaa muddo 6 bari oo aan maxbuus ahaa waa la soo daayay dib baan waxaan helay xorriyadeeda taa ilaahay ma hadle qof walba oo ka qayb qaatay waa u mahadcelinaa waxaan leeyahay mahadsan tahay maalintii khamiista baa waxa dhacday barnaamij aan leeyahay oo la dhaho toddobaadka iyo hadal haynta inaan shacabka magaalada Qarlo aan weydiiyay shacabku yiri maxaa ugu hadal haynta badnaa toddobaadka kan aniga oo duubay barnaamijkaas si khamiis la ah wuxuu uga baxaa boggayga Qarlo Media kadib waxa dhacday anoo shacabkii wareysanaya baa waxa soo wacay taliyaha qaybta gobolka Karkaar wuxuu yiri fantastic dadka ayaa wareysanaysa waan kula soconaa wax dhibaato ku keenaya xasuudin waxaan ku yiri taliye anigu wax dhibaato ma wado barnaamijyo ii bixi jiray oo aan dadka ku wareysan jiray baan hadda wareysanaya isla saacad kadib ama daqiiqada kadib anoo maraya barnaamijka soo dhameystay oo maraya samtel horteeda baa waxa ii yimi gaari barobkiisa oo ordaya oo ay la socdaan 4 askari waxa la yiri soo bax saldhigga laga rabaa ciidankii waa raacay waxaan saldhigga kula kulmay Qarlo taliyaha saldhigga Qarlo Umar Hiirad wuxuu yiri dadka aan wareysanayso fantastic oo jooji waxaan ku yiri taliya anigu dadka aan wareysanay wax dhiba ma wadaan waa barnaamij aan lahaa oo ii baxbaan wareysanay anigu markii saldhigga aan aaday ma soo qorin saldhigga laga yeeray waxba barobagaada ma wadin si nabada baan uga soo baxay si nabadaan ugu tagay ciidanka kaliya ay qaaday wax dhiba markaa ima geysan barnaamijkayga khadkaan soo dhigtay waa soo publish gareeyay dadku waa daawadeen khamiistii wax dhiba lama kulmin anigu waxba ma soo qorin ehelkayga iyo reerkayga kaliya waxaan ku yiri iyo asxaabtii inta igu dhow ciidanka soo wacay su'aal bayna soo weydiiyeen wax dhibana ma qabo anigu haddaan barobagaada wado ama dhib wado markii aan Facebook ku soo qori gaar waa la soo handaday waa la yeeray saldhigga leegay laakiin waxaan isiri waxba dawladdu waa dawladdaadii raggan meesha joogan oo hadda ciidanka iyo dawladana waa dadkaagi wax barobagaada anigu isma gelin wax dhibaato ah niyadeed ma gashan habeenkii maalinta jimcaha sidii baan ku joogay galabtii jimcaha 6 marxalnimo baa waxa ay soo wacay taliyaha saldhigga Qarlo Umar Hiirad anigoo goob caafimaad jooga oo wiil adeer ah oo yar oo xaalad caafimaad markaas aan isbitaalka guutaal ugu suganahay fantastic xagee joogtaa wiil magaaladan joogaa wiil baayir wixii yini waa ku baahanahay si degdeg ah waxaan ku yiri markaan danahayga soo dhameysto baan taliya insha Allah ku imaanay adigu hawlahaygii way ugu dheeraadeen waxaan ka soo baxay 2 saac ku dhawaad aad bi ii soo wacay marka taliyo shan daqiiqo ii soo wacay xagee joogtaa waa ku rabnaa waa ka waxaas buu dhahay taliyo anoo soo socdo oo danahayga soo dhameystay oo maraya saldhigga hortiisa baa waxa ii yimi gaari ordaya oo ay saaran yihiin askar waa la kaxayay saldhigga la geliyay saldhigga markaan saa horta uga galay shaqadii koowaad oo layga qabtay waxay ahayd waxa layga dafay taleefankii wali hadalada la dhahay waxay ahayd taleefanka ka qabta iyo dad iyo waxa wacan isla markaas waa layga qaaday taleefankii waxa la geeyay oobiga magacayga layga qoray waxa la yiri ninkaas dadkii xiraaya ama ciidankii xiraaya taliyii askarta markaa watay waxa uu ku hadlayay ama dhahayay ninkan hadhiginina dayrka sheelada geey waa la qaaday waxa la geeyay qol mugdiya qolkii saasa lagu tuuray markii saa lagu sii daayay waxaan ba meel mugdina waa ahayd oo saa lagu taqantaqay qof meesha markaa ku jiray baan dusha kaga dhacay meesha mugdi baa leer ma lahayn haddaan ba qofka wariyaa waaye mise waa saaxiibkii kaboonga war heed adigana ma lagu keenay wiil
meeshii baanu joognay meeshii baanu habeenkii seexanay oo aan aniga saaxiibkii Kabonge meeshii seexanay wax gogolna looma keenin xalqada dambe ayaan kaga warrami doonaa insha Allah xaaladda saldhigaan kaga kulmay iyo jeelka halkaas aan rabaa inaan habeenkii ku barinaan halka kaga gudbo subaxdii aroortii 6 aroornimo baan iyo saaxiibkii Kabonge nala qaaday waxaana la geeyay jeelka weyn ee magaalada Qardho taliyaha saldhiga Qardho Umar Hiirad iyo laba askari wado baana gacanaha ka jeebeysan jeelkina geeyay halkii ayaanu 6 bari ku soo qaadanay xarigayga waan cambaareynayaa waxa loo soo maray sharci darro waxa la igu soo daayay sharci darro qof walba oo arrimaha xaqul insaanka ka hadla hay'adaha ka hadla cid walba oo ku shaqo leh baan insha Allah la wadaagayaa oo sharci darro lagu xiray liguna soo daay haddii sharci la soo mari lahaa warqad la soo jar lahaa la dhigay fantastic waa lagu haystaa dawladda ku haysta qodobkaas gashay de markaa waa istifaaci lahaa oo maxkamad la marna anoo aan jeel liigay xilli habeena ba aroor li qaadi 6 bari ba jeelka magaalada Qardho liigu hay wixii aan kala kulmay waa ka warrami doonaa insha Allah anigu waxaan ka shaqayn jiray horumarka magaalada Qardho horumarka Puntland 4 bari ka hor xarigayga waxaan shacabka magaalada Qardho weydiinay barnaamij aan ku leeyahay shacabka Qardho hadii awood lagu siiyo in maanta aad doorato madaxweynaha Soomaaliya oo hadda la dooranayo loo balansan yahay yaa dooran lahayd shacabka Qardho badi wax isku raaceen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni waxaan u dooran lahayn madaxweynaha Soomaaliya dadkii ii soo lahaa barnaamij fiican baa qabatay Facebook igala soo hadlaayay oo la barnaamij cajiib ah qabatay waa ku mahadsantahay oo Facebookada iyo page-kooda dhigay hadda markii la xiray ama inta la xirin oo habeenkii Facebook hadda waxaan ugu intaas oo message oo ii soo qorayaan oo leeyahay maxaa barnaamijka ku gashay maxaa uga hadashay maxaa waxaan ku galiyay waa dadka shalay ii soo qorayaan madaxweyne Deni markaan shacabka Qardho weydiinaya madaxweynaha doonaysa soo amaanay maanta iga soo horjeeda kaliya waxay rabaan amaanta kaliya in madaxweynaha la sheego ama xukuumadda Puntland daawada 4 bari ka hor waa kuwan shacabka magaalada Qardho wareysanayo leh yaa madaxweynaha u dooranaysan وداونيسن شعب كقردو حدي أهل هايين شعب كقردو وحنا مدحوين ودورنا هنا فرماجو خير رجع كلا شرحن وأن مدحوين Deni أن قدر مرن لها دي هدي أنا وضو أما كعين بشو أما أم بربقادة وضو وأسمين كان لكن ما سمين شعبكم ماشي وبتين مدحوين Deni بيسكر عن هل غفا فرماجو دورتي دي بقى داون كده برامج ترى واحد بربقادة موجود لكن تاس abaalkeed waxa laga dhigay in la xiro 6 bari la hayo laga qaado xorriyadeedii taas bayad aad baan xarigayga u cambaareynayaa qof walba oo ka qayb qaatay xarigaygii oo u dooday oo hadlay oo si gaar ah ii soo daayay oo si gaar ah u tagay maxkamadda Qardho waan u mahadcelinayaa khaasatan waxaan aad ugu mahadcelinayaa wariyaasha Puntland oo xarigay ka hadashay ururka saxafiyiinta Puntland ee ma baan aad ugu mahadcelinayaa oo ka soo saarday warmurtiyeed ka soo saartay ama qoraal ka soo saartay waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa family-gayga oo intaan xirnaa aad uga qayb qaatay xarigayga baan aad uga mahadcelinayaa sidoo waxaan si gaar ah iyagu ugu mahadcelinayaa madaxda ururka mideeye oo arintayda aad iyagu u dadaalay oo ka qayb qaatay oo aan maxkamadda maanta dhawto isku aragnay madaxda ugu saas urur siyaasadeedka mideeye waxaan sidoo kale aad ugu mahadcelinayaa wariyaasha Puntland meel kasto ay joogaan khaasatan waxaan aad ugu mahadcelinayaa wariyaasha Boosaaso oo xarigay aad uga hadlay waxaan xalqada labaad aan kaga hadli doonaa hadii alla idmo saldhiga maxaan kala kulan anagoo saldhiga habeenkan ku xirnay aniga Kabonge jirdilna loo geystay qaybta dambe aan ku faahfaahin doona ishaadal jirdilkaas xaaladda xabsiga uu ku sugan yahay maxaabiista ku sugan waa sida xaaladooda xalqada dambe aan kaga hadli doona oo saddexaad hadii alla idmo maxkamadda seedeentone qaab noocee u madhi maxaysan ugu tahay markii maxkamadda insha Allah waraqa akhrineysay xalqada dambe aan kaga hadli doona insha Allah waxaan idin ka codsanayaa daawada mar kale inaan muuqaalka sii share galiso asxaabta la waato like iyo comment-gana aad u soo badsan ha moogaan hana ilaawin bogga aan ku leenahay YouTube-ka ina Qardho Media subscribe ya like aad noo soo saarto jeelka markuu niisoo wada Umar Hiirad hanjabaadi ka dhacaysay adiguna waa isoo tahay taliyo Umarow de anaguna waa ku ognaa laakiin xaasha lillah inaan ku fogaano dhan waxa suniyay xaasha lillah de ima qabato igama suurtoodo oo de inaan halkan anigu aan cid cambaaray hadda ma soo istaagin kaliya inaan ka hadlo xarigayga cidii ka dameysay sidii la soo qabtay inaan dadka u sharaxo kaliya oo u sheego aan ahay inaan dulmana ahay xaquuqdeedii baa lagu xad gudbay 6 bari baa jeelka Qardho bilaa sababna ku hay cid naga dabatay ma ninkina soo xirtay Umar Hiirad maalin naga ma daba imaan gogolna ma uusan keenin booqashadii baa naloo diiday intaan xirnaa hal mar bay family-gaygu soo booqdeen waxa taa isma aan aragay askarta banaanka jooga ayaa waxay nooga keeneen dhar saaxiibkii qaale sidoo kale guud Kabonge asagana 2 jeer baa waxa u yimi family-giisa
aad iyo aad baa u mahadsantiin ha moogaan muuqaalkana sii share geliso like iyo comment-kana aad u soo badisaan xalqadaha dambe ayaa noo ballana oo aan kaga hadli doono maxaan saldhigga Qardho kala kulan iyo jeelka Qardho waase maxaabiista ku xiran xaaladooda maxay dareemayaan waxaan ku soo aragnay qaybta dambe ayaan insha Allah idin kula wadaagi doonaa anigu ma wado propaganda iyo waxa ma wado laakiin waxaan ka sheekeynayaa wax jidda oo dhacday waxa kale oo ilaa waan rabaa inaan sheego wariyaal Puntland waxaan hadda jooga oo xukuumadda u shaqeeya oo waxay doonaan soo qoraya ayaga horta sharci ku qabto ma jira miya waxa jira ciidan lagu soo dhaweynayo Boosaaso baan waxaan daawaday heesaha loo saarayo waa heeso ka turjumaya kicinta maxkamadda sare markaan joogay su'aal baan waxaan weydiinay madaxda maxkamadda joocan ku niri wariyaashaas ayaga maxaa la gudboon ma kuwa kaliya oo u shaqeysa sida bareefadka ba la ugaarsanaya oo la soo qabsanaya oo la raadinaya kuwa dawladda waxay doonaan bi qoray ciidan baa halkan soo galay ciidan baa halka la wareegay ciidan baa sheegay yaa qabanaya waa su'aal sumeedin mudan oo calaamad su'aal saaran ama santiin isma dhaafno waa fantastic boga Qardho media ku xirnaada sii share garay muuqaalkan like iyo comment-ka aad u soo badi isma dhaafno